go-aanka uu qaatay sharcigaas curintiisii xildhibaanna hadda halkaan aan ugu jeedo iyo 57 xildhibaan ah ayaa soo curiyey sharcigaas ayada wuxuuna ka dhashay shirkan shirkii ka horeeyay ee halkaan ay nagu casuumeen xisbiyada Soomaaliyeed ee nabadda jecel kadib markii ayna casuumeen oo inaga codsadeen in la jiheeyo doorasho maadaama ay doorashadii hore ee dadbaneed ay socon waayday muxuu ahaay wasiirkii arrimaha saxaafaddana uu hadlay uu yiri waa fashilmay shirki ayay shirkaas qabteen xildhibaan ay marti qaadeen codsi ay codsadeen ayay 57 xildhibaan intay isqortay sharci curiyeen kaasaa sabab u ah 149 xildhibaan ayaa haa u codeeyay 3 waa diideen hal xildhibaanna waa ka aamusay sharcigaas sharcigu noqday wuxuu ku saleysnaa qodob dastuuri oo la yiraahdo qodobka 47 oo aan u baahnayn laba xisbi laba baarlamaan aan u baahnayn oo u baahnay kaliya baarlamaanka golaha shacabka qodobka 47 ee qeexay in golaha shacabka ay jiheeyaan sharciga doorashada kaasaan ku saleyn waxaana ku qoraa muddo 2 sano gudahood waa ma aha 2 sano kadib inay doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo dad baa la booday arintaas ayada waa qareereeyeen waxaa 2 sano lagu dariyay yiraahdeen ku darsiimay la boodboodeen beel caalam iyo adduunyo ay u garaaceen gurbaan wadankay ayay ugu baaqeen in gumaysi la geliyo ilaahay ma dhihin laakiin baarlamaanka Soomaaliyeed go'aankiisa waa go'aan waxba yay cabsi idinku abuurin damdigta yeerayso yay waxba idin cabsi gelin 194 dawladda caalamka ka jirta mase 3 waaye ee caalamka ka jirta wadanan baarlamaan leheen male wadan walbana baarlamaankiisa go'aanka uu u gaaro ayaa kama dambays u ah annagana kaayna kaasoo la mid yahay dalka Mareykanka baarlamaan uu leh sidaa inoo kala 2 aqal waay walaalaheena dadka noogu dhaweeyay aan dhalanay Djibouti baarlamaan ay leeyihiin Ethiopia baarlamaan ay leedahay Kenya baarlamaan ay leeyihiin annaga waxba kama sheegi karna go'aamada ay gaaraan annagana kaayna waxba kama sheegi karaan waxaa haboon inaan iscisayno qolo walba muxuu ahay gobonnimadeeda lagu tixgeliyo oo muxuu ahay ixtiraam uu naga dhaxeeyo wixii intaas ka badan waxa weeye siday u ficiltimaan ayaan u ficiltimaynaa waxaan rabaa inaan baaq u diro beesha caalamka annaga dawlad xur ahaanahay waa madax bannaanahay awowyaalkaynaa nagu soo simay annagana ubadkaynaan ku simaynaa faragelinta ha naga daayaan hadday faragelinta naga day waayaan waxaan maqlahay ciidamada amisom ha ilaaliyana ciidamada Soomaaliya noloshay ku qaban karnaa ciidanka leeyihiin ciidanka ha ilaaliyo noloshaan ku qaban karnaa noloshaan ku qaban karnaa wallahi billah markaas ay waxay leeyihiin amisom ha ilaaliso ciidamada Soomaaliya waa dad wareersan waa dad aan dawladnimada fahmaynin ha ogaadaan Soomaaliya midowga Afrika kala bar xurriyadeedii aan ka qayb qaadanay ee aabiyaalkayn u dhinteen oo u dhaawacmeen oo hantidayna ay ku baxday inay maanta yiraahdaan wiilka Soomaaliga ee askariga amisom ha ilaaliso waa aqli xum waxaa meeshaas ka muuqanayso inayna dawladnimada u fahansaneen Afrikaanka fahma dawladnimadu waa is-ixtiraam waa diris wanaag waa isqadarin intaas fahma intaas ha iska yaacina arga adnoo soo dirsid muxuu iga qaadaya
waxaan rabaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya hadduu ka gorgortamo sharcigiis baarlamaanka saxiixay ee asaga saxiixay baarlamaanka saxiixay hadduu ka gorgortamo impeachment-kiisa aan miiska soo saarayna asaan xilka qaadayna asaan xilka ka qaadayna haddii madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ha ii dhageysto hadduu ka gorgortamo sharcigaas asagaan xilka ka qaadayna ha asaan xilka ka qaadayna walaalow waxaan rabnaa waa afuri doonaa maanta oo kale afurmaba loo baahna waxaan rabnaa sharcigaas asagaa keliya baarlamaanka Soomaaliyeed oo fadhiista iyo shuruuc lagu duro oo dastuurka laga soo xigto ayuu ku buri karaa ama lagu gorgortami karaa annagana diyaar uma nihin inaan saacadan buug u baarbaarno waxaan jeheynay doorashadii halka qof iyo halka codeed muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa barna ha codeeyana aheed barna ha iska joogaanay hadda Soomaaliya way simata qof kasto muwaadin ah wuu codeyna ninka taas diida ee Afrikaana ama beel caalama ama Yurub ha joogo ama America ha jooge ee aan aaminsaneen in doorasho hal qof iyo hal cod ay dhacdo dimuqraadiyadii ay sheeganayeen afka baarkeeda wadankooda un bay ku dhaqaayeen annaga ku dhaqayno aad iyo aad u mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka